Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudan ee ku xiran casharadeenii Chemistry Secondary Form 2 casharkiisii labaad kusoo dhowaada. Fadlan subscribe gareey oo share gareey haddii aad ku cusub tahay Kororso Aqoon Channel. Waa channel oo aad kaga bogan doontid casharada biology iyo chemistry iyo casharada diiniga oo dhan. Waxaynu soo gaarnay modern periodic table, jadwalka casriga ah ee curiyaasha. Page 11 ayaan ka bilaabaynaa periodic table of the elements, jadwalka curiyaasha casriga ah. This modern periodic table is a table in which all known elements are arranged in order of their increasing atomic number. Jadwalkan casriga ah waa jadwal ay ku dhex jiraan dhammaan curiyaasha la garanayo oo dhan oo lagu habeeyey hab la yiraahdo increasing atomic number. Tira atom hadba tira atomku sida waxa weeyaan ay u kala sareeyaan. Curiyaasha tira atomyadoodii sida ay u kala sareeyaan ayaa loo habeeyey jadwalkan casriga ah. It contains of 118 boxes. 118 sanduuq ayuu ka samaysan yahay oo min hal curiya ah. Waa 118 curiya which are arranged vertically and horizontally. Waxaana loo habeeyey joog u tax iyo jiif u tax. Each box represents an element and it contains element name, element symbol, atomic number and atomic mass. Box kasta waxaa ku jiro curiyaha magaciisa, sumadiisa iyo tira atomka curiyahaas uu leeyahay iyo culays atomka uu markaa uu leeyahay, atomic mass ama atomic weight, and sometimes electronic configuration and valence. Mararka qaarkoodna electronic configuration ayaa lagu soo siyaadiyaa, electronada ayaa lagu dhex qaybiyaa dhexdiisa, iyo valence iyo kaaftoonkiisii ayaa jadwalada qaarna ay qoraan. Laakiin intaana u muhiimsan, tusaale fiira deer carbon ayaa halkan ku qoran, magaciisa waa carbon, waa halkan ka muuqda element name. Atomic numberka waa kan dhinaca bidix kor ayuu ka saaran yahay, waa 6. Mass numberka hoos uu yaala waa kan atomic mass, waa 12.01, waa 12. Symbol sumadiisana waa C. qaabkaas ayaa curiyo walba loo qoray oo jadwalka ku jira. Periods of the modern periodic table. Jadwalka casriga ah wuxuu leeyahay periods wax la yiraahdo. Period maxaa la yiraahdaa? The horizontal rows of the periodic table are called periods. Sadarada jiif u taxa ah ee jadwalka marka jiif loo xisaabinayo, sadarada jiifka ah oo jiif u taxa ah ayaa waxaa loo yaqaanaa period ayaa loo yaqaanaa. They are numbered from the top to bottom of the periodic table. Wayna lambaraysan yihiin kor ilaa hoos. Mathalan periodka koowaad 1 ayaa ku qoran, saa ujeedaan waxaa ku jiro jiif u tax. Markaad u fiiriso waa hydrogen iyo helium ku jiro. jiif u taxa labaad waxa weeyaan lithium, sodium ayaa ku jiro, iyo boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Saasaa loo tiriyaa jiif. Their total number is 7. wadarta guud ee periodska waa 7. jadwalku wuxuu leeyahay 7 period ayuu leeyahay, waa marka jiif loo xisaabo. The first period has only 2 elements. Periodka koowaad 2 curiya ayuu ka kooban yahay, so it is called the very short period. Waxaana la yiraahdaa periodka aadka u gaaban la yiraahdaa, maxaa yeelay 2 curiya kaliya ayuu ka kooban yahay, waa hydrogen iyo helium. The second and the third periods has 8 elements each, and they are called short periods.
periodska labaad iyo saddexaad waxay ka kooban yihiin min 8 curiye ay ka kooban yihiin waxaana loo yaqaanaa short periods gaagaaban. The fourth and fifth periods periodka afraad iyo shanaad both have 18 elements min 18 curiye ka kooban yihiin and are known as long periods ayaana loo yaqaanaa. Period 6 consists of the lanthanide series, which is the upper row of the two separate rows placed below the main part of the periodic table. It contains 32 elements. Periodka lixaad waxaa ku jiro curiyaal la yiraahdo lanthanide series, taxanayaal oo curiyaal ah oo lanthanide la yiraahdo ayaa ku jiro, kuwaasoo waxa weeyaan periodka lixaad ka bilaabmayo ilaa kuwa hoos ay u soo dhaadhacayaan. Labadan horizontal ee dhulka taala hoos ee jadwalka ka baxsan qaybta kore iyo waxa la isku darayaa iyo period 6 ka la isku darayaa. Intaas marka hal period bay isku yihiin, 6 ay wada yihiin. Period 7 consists of the actinide series, which is the lower row of the two separate rows placed below the main part of the periodic table. It contains 32 elements now, but it could increase. Periodka toddobaad asaguna waxa weeyaan waa number 7 oo ka bilaabanaya jiifutaxaas ilaa qaybta hoos oo la yiraahdo actinideska kuwa dhulka yaala ayaguna oo qaybta ugu dambeysa jadwalka labada qaybta hoose iyo qaybta periodka 7 la isku daray ayaguna hal xabba isla yihiin. maxay faa'iido ay leeyihiin marka periodisku waxay leeyihiin the periods indicate the number of shells of an element. Periodisku waxay cadeynayaan inta shell ee curiyo uu yeelan karo. Curiyahan inta shell uu sameynayo marka electron configuration la sameynayo curiyaasha laga qaybinayo inta wareeg ee uu buuxsami karo oo 2 ku buuxsami karo 8 ku buuxsami karo 18 ku buuxsami karo soddon iyo maxaan ku raahdaa 2 ku buuxsami karo ayuu cadeynayaa marka. The elements in the same period have different properties. Curiyaasha ku wada jiraya hal period waxay leeyihiin astaamo kala duwan. Kaliya waxay wadaagaan number of shells. Mathalan period 1 hal shell ay sameynayaan. Period 2 shell ay sameynayaan marka electron configuration la sameynayo. Tusaale fiir hadda potassium waxay leedahay atomic number keedii waa 19 waaye potassium. waxaa loo qaybinayaa 2 8 8 1 waa 4 shell ay sameynaysaa. Periodka 4 ay ku jirtaa marka. Calcium oo kale iyaduna waa 20 weeye atomic number keedii 4 shell ay sameynaysaa 2 8 8 2 ay u kala baxaysaa. sidaa daraadeed 4 shell ay sameynaysaa. period 4 ay ku jirtaa marka periodka faa'iidada uu leeyahay waxay tahay wuxuu tilmaamayaa curiyaha inta shell uu sameynayo ayuu ku sheegayaa. Groups of the modern periodic table jadwalka casriga ah wuxuu leeyahay sidoo kale groups kan ka hadlaynaa. Groups maxaa la yiraahdaa? The vertical columns of the periodic table are called groups. columnska oo joog u taxa ah jadwalka uu leeyahay yani marka kor laga soo xisaabo hoos loo xisaabo oo kor laga soo tiriyo inta column ee uu leeyahay ee joog u tax uu leeyahay jadwalka ayaa la yiraahdaa groups. markaad kor ka soo tirinayso aad hoos keenayso oo joog u tax aad u xisaabinayso ayaa la yiraahdaa group. There are 18 groups. waxaa jiro 18 group ayuu leeyahay modern periodic table, which are numbered from left to right. kuwaasoo lambaraysan bidix ayaana laga soo tiriyaa midigana loo soconaya. 18 group ayuu ka kooban yahay. waa la kala qaadayaa marka 8 ka mid ah waxaa loo yaqaanaa isaga noo sheegi doono main group ayaa loo yaqaanaa groupka ugu muhiimsan
waa groupka ugu falgalka badan ayaa la yiraahdaa. waxaa kaloo jiro subgroups oo 10 ah ayaguna ama 12 ishag lagu qiyaaso marka la soo yareeyo waa 12 weeye. waa main groupka aan ku hormarno marka. The groups are classified into groupska waxaa loo qaybiyaa into main groups. waa groups oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa jiro main group. These are called representative groups na waa la yiraahdaa. waa group wax tilmaamayo and they are 8 in number. waana 8 weeyaan kuwan. مثلا dhinaca bidix hadaan ka soo qabanno joogu taxa koowaad oo hydrogen ka bilowdo ilaa francium waxaa loo yaqaanaa group 1 ayaa loo yaqaanaa. waxayna ku magac dheer yihiin alkali metals ayaa la yiraahdaa. waa bir adag, waa birta tan ugu xoogan weeyaan. waxaana ku jiro curyaashaas hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium ayaa ku jiro. group 2 groupka labaad waxaa loo yaqaanaa alkali earth metals ayaa la yiraahdaa. waa birtii hore ay kasii ka yara jilicsan yihiin. beryllium ku jiro, magnesium, calcium, strontium, barium, francium ayaa ku jiro. group markii labadaas group aad waxa weeyaan baratid, groupka saddexaad qaybtan dhexe waad ka boodaysaa marka. qaybtaas kale ee midig jirtay oo 13 ku qoran ayaa tagaysaa boron. waa groupka saddexaad ayaa loo yaqaanaa. carbon waxaa loo yaqaanaa groupka afraad isaguna. nitrogen iyo kooxdiisa waxaa loo yaqaanaa groupka shanaad. oxygen iyo inta ku hoos taalo waxaa loo yaqaanaa groupka lixaad. fluorine ilaa iyo inta ka hooseeyda waxaa loo yaqaanaa groupka toddobaad. helium ilaa inta ka hooseeyda iyadana waxaa loo yaqaanaa groupka sideedaad ayaa la yiraahdaa. sideedaas group oo laba bidix jirtay iyo waxa weeyaan 6 oo midig jirta waxaa loo yaqaanaa main group elements la yiraahdaa. curyaasha ugu falgalka badan weeyaan oo aad iyo aad muhiim u ah. labadan dhinaca bidix taalo waa metal, waa bir. 6daas kalena waa non metal, waa curyaal aan bir ahayn weeyaan iyo metalloid isugu jiraan. subgroups wax la yiraahdo ayaa jiro. intaana subgroupka galin curyaasha waxay u kala baxayaan metal. kuwa bidixda aad ku aragtay groupyada bidixdan waa metal. groupka midigna waa non metal, kuwa aan bir ahayn weeyaan. ilaa 7 curyo waxaa jiro la yiraahdo metalloid oo isugu jira bir iyo bir ma ah isugu jira oo labada sifo leh. subgroups ayaan galaynaa. groups waxaa jiro faracyo ah. 8dan muhiimka ah groupyo ka farcamayo waa 10 ka soo hartay weeyaan. 10 ka soo hartay 8na waa laga dhigaa. yani 3 xabo ayaa hal group loo xisaabiyaa, 7na gaar ah loo xisaabiyaa. waa kuwa dhexda ku jira weey oo dhan. groupyadan dhexda ku jira ay ka bilaabanayaan scandium ilaa zinc waxa weeyaan scandium groupkiisa, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. groupyadaas oo 10 ah ayaguna 8 ayaa laga dhigaa. 8 group ayaa laga dhigaa ayaguna. waxaana loo yaqaanaa transition elements ayaa loo yaqaanaa. curyaal guurguura waay. waa subgroups waa groupyo faracyo ah. they are also called waxaa loogu magacaabaa transition metals ayaa loo yaqaanaa. subgroups kaas waxaa loo yaqaanaa transition metals. waa bir guurguurta, yani waxaa ku jiro curyaal oo balanceooda isbedbedelaya mar walba, mar +2 mar +3 marba si weeyaan. they are at the center of the periodic table. bartamaha laga helaa. they begin from group 3 up to group 12. 3 ay ka bilaabanayaan. number 3 ayaa ku yaalo ilaa 12
of the 18 groups of the periodic table 18 lambarada 3 ilaa 12 kuwa ku jirayay waa 10 xabo weeyaan ayaa loo yaqaanaa transition metals. They can also be numbered by using a Roman number added to a capital letter B. gaarna waa loo xisaabiyaa lambarkan Roman numberka ayaa lagu xisaabiyaa 1 2 3 4 oo luqadda Romaanka loo qoraayo oo lagu daray B lagu daray oo ah 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B B oo capital ah ayaguna waxaa la dhahaa main transition metals la yiraahdaa ayaguna 1B ilaa 8B ah waa 8 waa ayaguna group ah waa kuwaas kuwii hore halka kuwii hore ay ka ahaayeen 1A ilaa 8A la yiraahdaa ayaguna 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A waa main group kuwa ah way ayaguna waa kuwa midig iyo bidix kala jira kuwa dhexda ku jirana xarafka B lagu asteeyaa 1B 2B ilaa 8B. In the periodic table, the group number indicates the number of valence electrons in that group. Faa'iidada uu leeyahay marka groupiska waa maxay? Wuxuu cadeynayaa baa la yiri groupisku waxay cadeynayaan the number of valence electrons. Tirada electronada kaaftoonka electronka ayuu cadeynayaa in that groupkaas. Mesela curyahan haddaad maqasho group 1A buu ku jiraa. Waxaa halkaas kaaga cadaanayo in uu bixinayo hal inuu bixinayo markuu falgalayo hal electron inuu bixinayo. Elements in the same group have same number of valence electrons. Curyaasha hal group ku wada jiraayay kaaftoonkoodii waa isku mid marka. Waa electrons in the outermost of the shell. Waa electronada ku jiraayay shellka dibadda. And properties astaamahoodana waa isku mid but have different number of shells laakiin shellashay kala duwan yihiin. Shelliska waxaa isla periodiska groupiskana waxay iska leeyihiin ayaguna valence iska leeyihiin. Tusaale mesela sodium iyo potassium are in same group hal group ay ku jiraan fiiri sodium iyo potassium group 1A ay ku wada jiraan. Thus they have the same number of valence electron but different number of shells. Marka valence electron kay ka siman yihiin dhammaan hal electron ay bixinayaan laakiin shellkay ku kala duwan yihiin. Blocks in the periodic table ayaa halkan ka galaynaa. Jadwalka sidoo kale wuxuu leeyahay wax la yiraahdo block sida u jeedaan jadwalka waa la soo kala gareeyay qaybta bidix birta cagaar la mariyay qaybta dhexana jaala laga dhigay qaybta midigna waxa laga dhigay kalarka guduudka ayaa laga dhigay qaybta hoosna kalar gaar baa laga dhigay. Marka dhinaca bidix leemanka cagaar ama groupiskaas oo joog u taxa ah waxa loo yaqaanaa S block element la yiraahdaa blocka S. kuwa geeska midig jira ee guduudka ahna waxa la yiraahdaa B block elements la yiraahdaa. Waa curyaasha blocka B ku jira. Kuwa dhexda ku jira oo transition metalska waxa loo yaqaanaa D block blocka D ayaa loo yaqaanaa. Kuwa hoos waxa loo yaqaanaa F block blocka F ayaa loo yaqaanaa. Marka blockiska uu leeyahay jadwalku waa waxa weeyaan afartaas weey. S block maxaa loo dhahay marka asaa ku sharxayo. S block elements are elements having their valence electrons in S orbital. S block elements ka curyaasha la yiraahdo waa curyaal leh kaaftoonka electronkoodii ayaa waxa weeyaan orbital S ka ayuu ku dhamaanaa. Yani hadii la qeybiyo curyaashaas oo electron configuration ka la sameeyo block S ma dhaafaan. Waa arki doonaa sida loo saaro marka block S waxa loo dhahay S orbital wareega S ma dhaafi karaan. These elements consist of waxayna ka kooban yihiin curyaashaas way badan yihiin waa hydrogen helium waa curyaasha birta oo dhan weeyaan iyo hal xabo oo noble gas ka oo helium ku jiro. B block elements ay jiro curyaasha la yiraahdo blocka B are elements having their valence electrons in B orbital. Ayaguna kaaftoonkoodii waxa weeyaan electronada waxa weeyaan kaaftoonka wuxuu ku dhamaanayaa orbitalka B ayuu ku dhamaanayaa oo marka la qaybinayo electron configurationka B ay ku wada dhamaadaan oo qaybta B ay ku dhamaadaan ay ku ekaadaan. Sidaa daraadeed loo dhahay B block elements
waxaana ku jiro boron, carbon, nitrogen, oxygen kaas iyo halogen family qolyo la yiraahdo kuwa cusbada sameeya waa group 7A oo dhan iyo noble gaseska way ku wada jiraan. The S block and B block elements are collectively known as representative elements ayaa loo yaqaanaa. Waa curyaal aad u shaqeynaya waaye. Blogga S kuwa ku jiray iyo blogga B waana dhammaan waxay isla yihiin main groupkay isla yihiin. Waa group 1A ilaa group 8A weeyaan. D block element ayaa jiro curyaal la yiraahdo blogga D ku jira are elements having their valence electron in D orbital. Ayaguna valencegoodii wuxuu ku dhamaanayaa electronadoodii marka la saarayo electron configurationka orbitalka D ku dhamaadaan. Saasa loo dhahay D block. These elements consist of transition metals only. Curyaasha transition metals la yiraahdo guurguura birta guurguurta ayaa waxa weeyaan ay ku eg tahay. Mid kale oo soo galaysa mala D block. F block elements maxaa la yiraahdaa are elements having their valence electrons in F orbital. Waa curyaal waaye ayaguna electronadoodii valencegoodii ku dhamaanayo blogga F ay ku dhamaanayaan. Maadaama F ay ku haraan electronadooda ayaguna waxaa la yiraahdaa F block elements. Waana laba group waaye oo la yiraahdo lanthanides iyo actinides ayaana ku jiro. kuwaasoo laga keenay qaybtii transition metalska laga soo bixiyay ee gudaha group 6 iyo period 6 iyo period 7. fadlan dhageyste la soo casharadeyna dambe oo subscribe gareey.